اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه. الحمد لله عدد ما حمده الحامدون، والحمد لله عدد ما غفل عن حمده الغافلون. الحمد لله دائما وأبدا. الحمد لله حتى يرضى ربنا. الحمد لله إذا رضي. الحمد لله بعد الرضا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله ما تعاقب الليل والنهار. الحمد لله. الحمد لله له الحمد والثناء الحسن كما ينبغي لجلال وجهه، كما أثنى ربنا على نفسه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu soo wadnay silsiladii ducooyinka ramadaantan iyo ramadaantii ka horeysayba bifadlillaahi wa karamihi. waxaynu maraynaa ducada 30aad. bisheeni waa gabagabo. ilaahay subxaanahu watacaala ha inaga dhigo kuwii guuleysta. ilaahay subxaanahu watacaala inaguma khasaariyo taagnidii, inaguma khasaariyo rukuucdii, inaguma khasaariyo sujuudii, inaguma khasaariyo ducooyinkii. mowlaha waaxid alaxadka alfard الsamad alladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad biasmaa'ihi alxusnaa wasifaatihi alculaa. waxaynu ku weydiisanaynaa ilaaha waaxid alaxadkaahi inuu inaga dhigo kuwa guuleysta. ilaahay ha inaga dhigo kuwa guuleysta. ilaahay ha inaga dhigo kuwa carshigiisa harsanaya yowma laa dhilla ilaa dhillu. ilaahay subxaanahu watacaala ha inaga dhigo kuwa wejigiisa arkaya. wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha naadira. ilaaha waaxidul axadkaahi ha inaga dhigo kuwa lasoo galbiyo marka dhulka laga soo saaro. yowma yuxsharu lmuttaqiina ila araxmaani wafdaa. ilaahay subxaanahu watacaala ha inaga raali noqdo. ramadaano kalena rabbiga waaxidul axadkaahi ha ina gaarsiiyo inakoo caafimaad qabna oo caloolsan, oo rabbiga waaxidkaahi ha inagu gargaaro inaynu u cibaadaysano oo inaga aqbalo. ilaahay subxaana watacaala adduunyadana cizi iyo karaamad ha inagu dul joojiyo. aakhirana rabbiga waaxidul axadkaahi aladiina laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun. ilaahay ha inaga dhigo. ilaahay ha inagu aqbalo. agtiisa ha inaga aqbalo. rabbiga waaxidul axadkaahi ilaahay ha ina aqbalo. ducooyinka aynu soo dhigan jirnay inta badan waxaynu kasoo dheehan jirnay qur-aanka, laakiin ducadani maanta way ka duwan tahay. waxaynu kasoo dheehanaynaa sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam. ducadani nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu baray caaisha. sidaynu ognahay caaisha waxay ahayd dadka oo dhan, xaasaskiisoo keliya ma aha, dadka oo dhan qofkii ugu jeclaa. waxaynu ognahay nebiga calayhi salaatu wasalaam mar la weydiiyey man axabu nnaasi ilayk, wuxuu yidhi caaisha. marka qofka uu jecel yahay waxa ugu qaalisan ee qalbigiisa u dhow ayuu hadyadeeya ama siiya. ducadani waa duco uu si gaara u baray nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisha oo dadka uu ugu jeclaa. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay khayrukum khayrukum liahli wa ana khayrukum liahli. waxay idinku akhyaarsan oo idinku wanaagsan oo idinku sharaf iyo karaamo badan ragga inta wax weeyaan xaaskooda iyo reerkooda u wanaagsan. anaana xaasaskayga iyo reerkayga idinku wanaagsan. wanaaga aad u wanaagsan tahay qofka lamaanahaaga waxa weeyaan waxaa tusinaya inaad khayr oo dhan aada la jeceshahay. marka ducadani waa duco koobsanaysa khayr oo dhan ayay koobsanaysaa.
nabigu calayhi salaatu wasalaam caaisha wuxuu barayaa inay ku ducaysato allaahumma innii as'aluka min alkhayri kullih caajilihi wa aajilih maa calimtu minhu wamaa lam aclam وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما أعاذك منه عبدك ونبيك محمد اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا اللهم الله يو إني أنيقو أسألك وحن كويدي سنية من الخير خير أودن كله عاجله وآجله خير أودن أيان كويدي سنية خير أودن إدى كوبي كرتا وإلهي أعود عليه إأق عاجله وآجله إلهي وخيرك كاتود دجسو إيا كاتب لك طلبة طبعا حبالا قمتي نواد أركي سامرك ما علمت منه وما لم أعلم إلهي وخيرك كان أغهي إيا كان نوغين وحد حصون إلهي باوك إمسا شيء أدو أركتو إنا خير بكو جرن خير بدنكو كايد سيهي إمسا مدكو مغضو أو كا أقدو وحويان خير كو جرا لكن هذيك آني كو موقنين مركا إلهي وخير أو دنبان كويديستي كاد سود دجسو إيا كاد دبدكتو كان أغهي إيا كان نوغين وأعوذ بك من الشر كل شر أودن أيا ربي وكاما قنقليا عاجله وآجله كاسود الدجسو إيا كاد دبدكتبا كاسود الدجسو إيا كاد هي دبدكتو ما علمت منه وما لم أعلم شركة كان أغهي إيا وحويا أنا نكرر عليان إله هاي إسو دوينين إيا كان نوغين اللهم الله يو إني أنكو أسألك وحن كويدي سنيا من خير ما سألك عبدك ونبيك خير أودن وحو خير كويدي ستي النبي محمد عليه الصلاة والسلام أيان كويدي سنيا أركي ميسي سدو مركا النبي نفتي سأوكو ستكيو عايشة وكو ستكيو شعايل يكالكعايل وهالكي ودن بيسي إن وحويان قفك وكلا تشعلاضو وحو نفتيسا لا تعليهي وشعايل هالكي ودن بيسي تاسنا وحا قدودي نوقوع النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما دامو خير كي وإساقو كدو عايستي أودن إله وحو خير نبي محمد كويديستي أودن أيان كويديسا ليه نبيكو حين أقنها إنو الله سبحانه وتعالى جوامع الكلم وسيي وأريا ركوبانكو إلهو وحويان دعوين باحدو ذا يقوتدو ذا إنتا لاكتهي واحد الأحد كودو أقيهي مركا إيادو ما كوبي كرتو وحكستو النبيكو هدو عايستو لكن إلهي با سبحانه وتعالى ما دامو النبي عليه الصلاة والسلام إلهي ودعيستو قاو حوقي وحاد كنتو عايستها خير كستو أو النبي محمد كويديستي أيان ربي وكويديستني وأعوذ بك رب وحان كاما قنقليا من شرك ما أعاذك منه عبدك ونبيك محمد شر كستو أو النبي محمد عليه الصلاة والسلام كاما قنقلي أيان ربي وكاما قنقليا intaa kumay shoogine waxa ku yidhi waxaad ku ducaysataayo kale allaahumma allah yow innii anigu as'aluka waxaan ku weydiisanayaa aljanna jannadan ku weydiisanaya wamaa qaraba ilayha min qowlin aw camal hadal kasta oo jannada ii dhaweynaya ayaan rabbo ku weydiisanaya camal kasta oo jannada ii dhaweynayana ayaan rabbiyo ku weydiisanaya inaan ku camal faloon sameeyo hadalkaygu ha noqdo rabbiyow ku jannada ii dhaweeya oo sabab u noqdo inaan jannada ku galo camalkayguna ha noqdo ku jannada ii dhaweeya oo wax weeyaan aan ku galo oo aan camal fasho camal jannada aan ku galo rabbiyo ayaan ku weydiisanaya allahumma allah yow innii anigu as'aluka waxaan ku weydiisanaya aljanna jannada janno kaliya kuma joogina waa maa qaraba ilayha wax kasta oo jannada ka agdhow min qowlin oo hadala aw camalin ama ficil ah ilaahu wixii fala ee jannada ii dhaweynaya ayaan ku weydiisanaya wixii hadala ee jannada ii dhaweynaya rabbiyow iwaafaji wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min annaari naar baan kaa magangelaya naar kastaan kaa magangelaya wamaa qaraba ilayha iyo wax kastoo ii dhaweynaya oo min qowlin hadal ah aw camalin ama fal ah ilaahu ficil iyo hadal toona rabbiyo aniya naartu yaanaan ismudanin وأسألك وحن كويدي سنيا أن تجعل إناد كدكتد كل قضاء
ilaahow arrin kasta oo aad ii qadartay oo aad ii goysay qadaytahu lii khayra, ilaahow khayr iigu goo. arrin kasta oo aad ii goysay wanaag hadday tahayna rabbow ii labalaab. rabbiyow haddii waxa weeyaan aan anigu xumaan u arko laakiin xikmadaad adigu iigu qadartayna ilaahow sabirkeeda iyo dulqaadkeeda iyo ajarkeeda ayaan rabbiyow ku weydiisanayaa ee igu sug. qadaagu waxa weeyaan wax kastoo ilaahay kuu qadaray, wax kasta oo kugu dhacaya oo ilaahay kuu qadaray yaa ayaad leedahay rabbiyow khayrkeedana wax kastaba ilaahow khayr iga dhig. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qofka mu'minka arrimihiisa oo dhan waa khayr. haddii wanaag ku dhacana ilaahay buu ugu shukri naqaa oo ajar baa loogu qoraa. haddii xumaani ku dhacdana ilaahay buu ugu sabraa oo ajar baa loogu qoraa. cid kaloo aan mu'minka ahaynina ma laha arrintaas. markaa waxaad ilaahay weydiisanaysaa qadar kasta oo ilaahay subxaanahu watacaala kuu qadaray ama arrin kastuu rabbigu jaangooyey inuu khayr kaaga dhigo. haddii ay wanaag tahayna uu kuu labalaabo, haddii ay xumaan tahay oo adiga ay bani aadamnimadaada kula xun tahayna ood yar dhibsanaysidna inuu ilaahay sabir iyo dulqaad iyo ajar isugu kaa daro. ilaahow maba yeelaysid markaa dhinacnaba inaad khasaartid ayaad diidaysa. ilaahow dhinacnaba ha i khasaarinin ayaad leedahay. marka waxaan arkaynaa ducadan inay tahay duco aada u shaamil ah oo koobsanaysa khayr adduun oo dhan. wax alle waxay ka tagtay haba yaraatee adduun iyo aakhiro ma jirto. khayr kastaad ilaahay weydiisatay, khayrka intaas lasoo dedejiyo iyo inta la dibdhigo, intaad og tahay iyo intaanad ogeyn. sharka inta lasoo dedejiyo iyo inta la dibdhigaba ilaahay baad ka magangelaysaa, intaad og tahay iyo intaanad ogeyn. ilaahay subxaana watacaala waxaad weydiisanaysaa khayr kasta oo nabi maxamed weydiistay calayhi salaatu wasalaam. ducadani waxay kaaga filan tahay duco kasta oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ku ducaystay oo laga yaabo maskaxdaadu inaanay koobi karayn. bimujarad aad tiraahid waxaan ku weydiisanayaa khayr kasta oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rabbow ku weydiistay. ilaahay subxaana watacaala waa caalim, waxba kama lumaan. cilmi kasta isagaa rabbiga waaxidka ahi soo dejiyey, isagaa cilmi oo dhan uu u sugnaaday. wuu ogyahay xaraf kasta. cid kastoo adduunkan dul joogtaa, ama dad ha ahaadaan, ama xayawaan ha ahaadaan, ama dhagax ha ahaadaan, ama ciid ha ahaadaan, ama cir ha ahaadaan, ama ay shay, wax kasta ayuu rabbiga waaxidul axadka ahi koobay oo ogyahay. quraanjada madow ee habeenka madow joogta ee dhagaxa madow dul saaran ayuu rabbigu ogyahay. aniinkeeda haddii ay hadasho oo waxa weeyaan ay afkeeda ku hadasho ayuu rabbigu ogyahay oo arrimaheeda waxa weeyaan uu ilaahay u dhamaynaya. la allown markaa bani aadam kaba kaalay waxay ku tusaysaa awoodda ilaahay waaxidul axadka cilmigiisu ay laag tahay. awooddiisa cilmigiisu intay laag tahay, awoodda cilmigiisa intay laag tahay ayay ku tusaysaa. subxaan allah. markaa wax kastoo uu nabi maxamed ku ducaystay ilaahay subxaana watacaala ayaa og. markaa tiraa rabbo wax kasta oo wanaaga uu nabi maxamed ku weydiistay baan ku weydiistay. wax kastoo xumaan uu nabigu kaa magan galayna rabbiyow aan kaa magan galaya. sababta aan markaa ducadani aan ugu soo khatimayno haddii ilaahay subxaana watacaala ramadaanta sidaa inoogu dhameeyo waxa weeyaan ducooyinkii aynu soo baranaynay oo dhan ee qur-aanka ku jiray. muran kuma jiro inuu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam mid walba ku ducaystay maadaama isaga lagu soo dejinayo qur-aanku dushiisa kusoo degayay. marka ducooyinkii oo dhan bay kuu soo koobaysaa ducadani. haddaan ducada ku noqono, allaahuma allahayow inii anigu as'aluka waxaan ku weydiisanayaa min alkhayri kulli khayr oo dhan ayaan rabbo ku weydiisanayaa, caajilihi wa aajilihi, khayrka kasoo degdega iyo kaa dib loo dhigo. maa calimtu minhu wamaa lam aclam, rabbo khayrka intaan ogahay iyo intaanan ogeyn ama awoodu lahayn inaan ogaado ama anigaba ii muuqanin ayaan ku weydiisanaya. wa acuudu bika waxaan kaa magan galayaa min ashari kulli shar oo dhan, caajilihi wa aajili sharka inta soo degdegtay iyo inta dib loo dhigaba. maa calimtu minhu wamaa lam aclam, ilaahu sharka intaan ogahay iyo intaanan ogeyn ama awood maskaxeed u lahayn inaan ogaado ama ii muuqanayno indhahaygu ay ka gaabiyeen ayaan rabbow kaa magan geliya. allaahuma allahayow inii anigu as'aluka waxaan ku weydiisanayaa min khayri maa sa'alaka cabduk,
khayrkii uu ku weydiistay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. marka cabduka wa nabiyuka, ay cabduka addoonkaaga. waxaa markaa ay ku tusinaysaa addoon marka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam la leeyahay inaan loogu quusgoynayo cid kastoo nebiga ku tarax tagtay. dad baa waxa weeye nebiga intay heerkiisii ka qaadeen gaarsiiyey heer xataa inay caabudaan oo isaga waxa weeyaan ay ula shariik yeelaan ilaahay. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam addoon buu ahaa. kulligeen sidaynu addoommada u nahay ayuu ilaahay addoon ugu ahaa. nebina wuu ahaa. waxay tanina sugaysaa oo xujo ku tahay cid kastoo nebiga ka gaalowday. inagu waxaynu qiraynaa inuu nebi ahaa calayhi salaatu wasalaam. waxaynu kaloo qiraynaa inuu addoon ilaahay ahaa oo aanu ogeyn cilmi aanu ilaahay subxaana watacaala ogeysiinin. marka labadaba waxaynu ka markhaati kacaynaa, labada makaanadoodba waxaynu sugaynaa inuu addoonna yahay oo waxa weeyaan wax aanu ilaahay subxaana watacaala isagu solonsiin aanu isagu garanaynin, nebina uu yahay oo cid kasta oo ka gaalowday aynu inagu ka duwannahay oo aynu rumaynay nebiga calayhi salaatu wasalaam. ilaah waxaan ku weydiisanayaa khayr kasta oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ku weydiistay. waxaan kaa magan gelayaa shar kasta oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam kaa magan galay. allaahuma allahayo was'aluka waxaan ku weydiisanayaa aljanna, jannada, wamaa qaraba ilayha, iyo wax kastoo ka ag dhowaada jannada ama ii dhoweeya oo min qowlin hadal ah aw camalin ama ficil ah. wa acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min annaari, naar ayaan kaa magan gelayaa, wamaa qaraba ilayha, ilaahu wax kastoo igu dhoweynaya. ilaah wax naar soo uraa rabbiyo iga fogay anigee naarta na kala qari. min qowlin hadal ha ahaado aw camalin ama fala ahaado iyo ficil. wa as'aluka waxaan ku weydiisanaya an tajcala inaad iga dhigtid kulla qadaa'in, qadar kasta, arrin kastood rabbow jaangoysay oo noloshayda waxa weeyaan saameyn ku leh, khayran, inaad khayr iiga dhigtid. wixii wanaagana rabbow ii laban laabtid. wixii xumaan aan caqligayga yare bashariga ugu arkana rabbow sabir iyo dulqaad aad ii siisid yaynan xikmadiisa aan fahmo. sidayn soo sheegnay ducada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam caaisha oo dadka ugu jeclaabuu baray. khayrka ku jirana waad arkaysaa siduu ugu sidkan yahay. wax kastoo nebi moxamed weydiistay oo khayral inuu ilaahay subxaana watacaala siiyo. wax kastoo sharo nebi moxamed ilaahay ka magan galayna inuu ilaahay subxaana watacaala ka badbaadiyo. qof kastoo ku ducaystana ilaahay subxaanahu watacaala waxaweyaan ma soo celinayo gacmihiisa, mana soo celinayo ducadiisa. waxaynu ognahay in ilaahay subxaanahu watacaala qofku hadduu labadiisa gacmood u taago uu ka xishoodo mowluhu inuu soo celiyo ilaahay uu ka xishooda. ducadu waa mukhil cibaada, waa maskaxda cibaadooyinkoo dhan. ciddaa doonto ahaw, sidaa doonto weekow, goobtaa doonto joog, goortay doonto ha kuu ahaato, afkaa doonto ku hadal, ama jiif ama fadhi ama istaag ama soco ama hadal. qalbigaagu yaa rab markuu ilaahay yidhaaho, yaa rab markuu ilaahay ku yidhaaho qalbigaagu, yaa rab, rabbigayow, yaa ilaahayow, labayka cabdii buu ilaahay ku leeyay, hee addoonkaygow i weydiiso. ilaahay wuu ka xishoodaa inuu gacmo qof u taagay iyagoo madhan uu soo celiyo. adoo naftaada waxaweyaan adigu ciila oo adigu ka gaabiyo mooyaane ducadu kuma koobna da, kuma koobno goor, kuma koobno goob, kuma koobno af keliya. ducadu waa cibaadada oo dhan maskaxdeeda. ilaahay haynaga aqbalo ducooyinkaynu soo samaynay. ilaah waaxidul axadka ha ina solonsiiyo in waxaweyaan aynu ogsoonaano oo aynu barano micnaha iyo quwadda iyo awoodda ay leedahay ducadu iyo xadhiga ay tahay ee ilaahay subxaana watacaala inagu xidhaya. ilaahay subxaana watacaala ducooyinkii aynu soo samaynay ramadaankii iyo cibaadooyinkii iyo falalkii wanaagsanaa aynu samaynay rabbiga waaxidul axadka ahi inaguma khasaariyo. ilaahay subxaana watacaala kuwii kala faa'iidaysta ha inaga dhigo. ilaahay subxaanahu watacaala kuwii wanaag isku bartay ha inaga dhigo. ilaahay subxaana watacaala kuwii wanaag isaga marakaca maalinta hortiisa la taagan yahay inaga dhigo. ilaahay adduun iyo aakhiraba inama khasaariyo waaxidul axadka ahi fardu samadku alladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad. sidaas ayay markaa inoogu xidhmanaysaa silsiladii ducooyinka aynu soo wadnay haddii ilaahay subxaanahu watacaala uu ka dhigo. ciid mubaarak kulligiin. taqabal allahu mina waminkum saalix alacmaal. ilaahay subxaanahu watacaala ha inaga aqbalo wixii wanaaga ee aynu kala barannay ilaahay agtiisay ka sugnaadeen.
wixii waxaweyaan nuqsaana ay ku yimi wixii aynu khayrar soo wadnayna shaytaan iyo nafaheennay ka ahaadeen. هذا وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.